dadka la cunsuriyeeyo ee Soomaalida ee qabaa'ilkan hadda sheegaysid ee madhibaan leh ee reerahaas la cunsuriyeeyo magaci doona wax loogu yeeray ma kula shaqeynayeen ololaha ma kula wadeen waa ila wadeen aniga ninka Maxamed Keenana iyo ma garanaysa mar waan isla wadnay website-ka anigu de website-ka waa qoraa uune ninka teknolojiyada iyo waxan iyo hawlahan yaqaano aha waaga ila hadda bahalkii waa fududaade waaga koorad iyo waxba la gelin jiray iyo HTML balaayo gelin jiray moogta isaga yaqaan waaga wax balaayo ah marka waa soo diraa qoraalka uu galiyaa waa isla shaqeyn jirnay markii dambe wixii campaign bay ahayd aad u weyn waa wadnay meel kasto ka dhacay meel walba maaragtay sheekooyinka jiraan loo soo diraa dadka la dhibaateeyana loo soo diraa waa soo dhijinaa waxaan qabanaa dood cilmiyeed wax walba qabanaa wixii waxay noqdeen wax weyn oo cajaa'ib oo qofka xataa Soomaaliga isa soo dhiiba website-kaas inuu soo akhriyo oo wax ka soo barto oo soo waxay dad badan baa isku soo dhiibay madhibaan iyo midgaan iyo isku soo dhiibay Soomaaliya yibir iyo magarasa professor badan oo dadka ah oo California joogo oo ama yibir ah ama tubaal noo yimid ciidaas ka badan ma soo booqday meeshii waxay noqotay markii dambe waxaan sameynay jaaliyad sima la oran jiray jaaliyad sima markii dambe dawladii Shariif inay ahayd iyo ma aqaan iyo inay ahayd baan filayaa marka ba xildhibaanadii baan u doodnay sax waxaan niri dadkan waa inay sameystaan caaqil sameystaan garaad waay adiga ugu tirtirsantahay qofka la dhaqan weynaysa sameystaan waxaan sameynay aduu ilaahay ka leeyahay campaign ah in maaragtay dadkii ay yeeshaan dhaqan yeeshaan oday dhaqameed yeeshaan ileen odaygan kale marka adiga u ashkatoonaysid asxaabku ma sameeynayo waba ka cunsureen waba cidiisa ku haysto xitaa suldaanka ama caaqilka ama garaadka aad ka amaanayso dadku mataladan ka amaanayso kama helayst marka garaadaan sameeyeen dadkii wixii way sii horumareen dadkii maaragtay waxay noqoteen wax indhaha u furmo oo aduu ilaahay ka leeyahay wixii shacab baxay oo qofku intuu qarsan lahaa qofku wixii lagu eego horta waxa adiga lagu cunsuriyeeyo markaad sheegtid caadi ma noqonaya ma yade wax kale lagu dhigi karo male adiga marka Soomaalidu ay ku dhahdo jareer waaba maxaa sheegaysaa dhahdii anaaba jareer adi maxaa sheemanay موقتها دكان كلمة جرير قال يا سعد عيد أسكت بدنا ضدك يا سعد يحرك وحول بهذا لكن ضد كان قومي ده أنت مركز أنت تارجت جريني وحيد مدبانك جبويها جود أهان اسكودر مركز حل دبان بقى يا لناي حل دبان كيبا محمد كينان كي ليش كنشري نفتي حل دبان كي نقضي ورنيو مركز وحق قسمين وفهم وين موقت واجي سلطان ذاكر ها iyo suldaanka loo ka horeeyay ninkii saaxiibkay ah baarlamaanka kale baarlamaan wuxuu noqday nin xildhibaana ma garanaysaa marka website-kii uu sameyn jiray wuxuu sameyn jiray xogaa waa ka caajisay xogaana waxa soo galay sheeko yar oo ma garanaysa si ah ninka muxuu idin horboodayaa amali waxba soo galaa umaleena baalka dhan u xiray adoo baalkan ku dagaalamayna website-kii dhammaay ummadda ilaahay bay ka baqasay wax walba lagu dhijin jiray ilaa isaga wax yaqaan moogta anu qoraaladan qoray wixii oo dhan buu xiray kadibna halkaas maalintaas mar hadaadan lahayn hadaadan af dheeri lahayn oo ilaahay kaliya meel ka hadashay jirin oo buuquusan jirin marka wixii waxay noqotay wax yar oo ah maartay waxaaga adiga adaa ku fadhidid abdo cidna ma garanaysa beelaha gabooye ee la hayso qudhoodu ma la oran karaa qayb bay ka yihiin iyo sida la yasayo ama abuse garaynayo oo ay wixii accept gareeyeen oo aqbaleen iyaga qudhood wallahi lama oran karo marka waqti dheer lagu caburiyo waqti dheer lagu bahdilo oo qoomiyad dhan aad ku dhex jirtid oo adiguna aad ka tahay number yar wixii waxaad noqonaysaa waxaad adabti gareysid oo aad isaga dulqaadatid ba iska noqonaysaa laga xoog badan laga hub badan laga ma garanaysaa aduu ilaahay ka leeyahay laga tiro badan waxa sameyn kartid male marka adiga lafahaaga iyo lafaha carruurtaada iyo waxana u baqasaaba fahamsaa sababta keentay waaye dadka adduunka la caburiyo dawramada waa meeqay ahayd intaas oo milyan ay ahayd meeqaasana xabashi 3 milyan 4 milyan gumaysan jirtay waxyaabaha dadku ama siyaasadaha ama huba tira badni maaha wuxuu caburis kala jira
production waxyaabaha ugu laakiin qofku inuu isdhiso oo ilaahiisa aamino oo uu dhimanayaa maaragtay meel un ka soo baxo waa fiican tahay laakiin waqti ay qaadanaysaa waxa laga yaabaa generationada soo socda hadda kuwa qurbaha oo kale waxa ku leeyahay nagala tag warka ida ma qabtid ilaa wuxuu ku koray nin aan maaragtay meel free oo aan sheekadan Soomaalidu ka socono inkastoo nuxnuxu socoto laakiin hadana waa nin dhulkiisaas maraayo shaqeysanayo lacag haysto oo moogta sharaf leh oo libisan oo socdo laakiin Soomaaliga qofka markuu ku hoos noolaado oo deegaankii aad adigu deganeedna ku tahay dad yar ku tahay oo sidii raba laga yeelayo taas xoog ma lihid moogta waxaan ku khatimayaa waxa jiray nin ummadii hore kamid ahayd oo nin wanaagsan ahay oo la oran jiray dadkii hore muslimka ahaa ibn khaldun waa filosofadii islaamka waaye maaragtay hore imam ghazali iyo isaga iyo fakhruddin razi iyo kasto dad badan hadda aysan aad u jeclayn ba balaayo loogu sheekay ka dhaxgale laba wiil oo Soomaaliya waxay tagay jaamacadda Minnesota oo masaajidada ku xirnaa meesha si fiican ninkii professorka ahaa حساب فلسفي وحبال لك نكى بروفيسور كون بس كم راقودي نك عدام بوها إمام غزالي وحو كسو كردي أدومك وحبو شيء أبحب برنامج يستاهل بعد عينه هذا بروفيسور كويا معلومة مرة كشكل بحال مرة دمبوي يا محاجر وده نجاز نمرتدو هادين في عملهم وريا وحن يا وكحي ليبراري وقليو نكى وحكون نقطي إن لبدو ذيك ليه وحشر حرايا يدي سوق فلي يا أخي مشاكل كسوماليدا وحاول وحلين لو شيء واسعنا يعني أنا لا اسمه critical بالله وحلا critical thinking وحاول ورقفك وحكو شيء قاعدين وحنا لا يسقري وحبار مركا شيء كذا سبحانك يعني ابن خلدون وحولها كتاب لده وحلا المقدمة the introduction المقدمة ناق يوروبيا waxay tahay moogi Mareykanka aduu naag Ingiriis ah waxay u turjuntay kitaabkii waxay ka dhigtay Ingiriis sax marka anu kitaabka ma akhrin laakiin xayeysiintii ay xayeysiinaysay erayadii halqabsiga ahaa ay ka soo qaadatay ku xayeysiinaysan fiiri waxa ku jiray mid ah dadka Nabi Muuse alayhi salaam dadkan Israa'iil ee Yahuuda ahi markii Fircoon Ilaahay ka soo badbaadiyay 40 sano waxay wareegayaan saxara oo Ilaahayna uu lahaa war ordo wadanka soo xoreeya umadu waaweyn baa haysatay markaa waa ku oran jiray oradii Ilaahagu soo dagaalamo innaha huna qaacidun faqatala innaha huna qaacidun ha orda Ilaahayna wuxuu ku saladeynaysaa umareystaan xigmada ku jirtay waxa weeyo yiri in kuwan adoonta soo ahaayee Fircoon soo cabrun jiray ee dansan inay saxaraha ku baaba'aan oo ay dhashaan kuwa aan weligood arag cunsuriyad iyo cabrus oo isla weyn inay dhashaan kuwaas xoreeyay marka ma fahmaysaa marka qofka marka la caburiyo oo la waxeeyo oo si kasta loo galo qofku waa dansanaanaya oo iska aqbalaya laakiin jiil soo socda hadii Soomaaliya aysan ahayn meel kale ku koraan oo ka badbaadaan waxa ma arkayaan moogta ee Soomaaliga baxar ku jira markaas sax muqashaga adiga jareer iyo yibir iyo gabooyi iyo yaxar iyo waxa rabtid laakiin yaani caruurteena u daneen meeno caruurtan yaani wadanka waa kula leeyihiin diinta waa kula leeyihiin dalka waa kula leeyihiin laakiin se caruurtaada waxa uu abuuraysaa cadow sida hadaba hawiye daaroodkii ba jinnigan iyo waxaan cadow isugu yihiin waxaan inaan ka baxno way marka ujeedadeena waxay ahayd inaan wacyi gelino laakiin macal asaf waxay noqdeen wax ma aragtay naga banjaray noqdeen moogtahay oo waxyaabo kale aan soo galay oo siyaasado kale iyo hawlo kale aan soo galay laakiin waxa aad u fiicanayd way aad baad u mahadsan tahay intaas waxaan ku soo afmeeraynaa qodobkan aan ku eegaynay cunsuriyadda iyo halku dhagay Cabdiraxmaan Eele ahaa midgaan sawad intii barnaamij la mid ah ku kulmi doono fi amaan illah